waxaynu bilaabi doonaa taxanihii mashruucii la dagaalanka nuurka. waxaa qoray cabdiraxmaan cismaan jaamac. qaybta koowaad sidatan ayay ku bilaabanaysaa. waxaan safar gaaban ku imid magaalada London, cariga Ingiriiska, anigoo u socday ka qaybgalka xaflad aroos oo ehelkayga ah. 3 cisho markaan joogay ayuu ila soo hadlay nin ka tirsan urur ka mid ah kuwa sida qarsoon u shaqeeya. wuxuu igu ballamiyay maqaaxi caanka ah magaalada London, kuna taala South Kensington oo la yiraahdo Giles Bakery. waan imid anigoo warwar yar igu jira oo isweydiinaya waxa uu iga rabo. markaan cabaar fadhiyay ee aan bun iyo macmacaan meeshii ku cunay ee aan kolba saacadda hoos ka eegayo, waxaa si kadis ah ii soo dul istaagay nin cad. wuxuu ii sheegay in la ii soo diray oo uu ii qaadayo hodheel. waan soo raacay gaarigii oo wuxuu ii keenay hodheelka River Bank Plaza oo ku yaala bartamaha London. qof baa ii sii taagnaa albaabka oo si diiran iigu sii dhaweeyay hodheelka. waxaa la ii kaxeeyay qol albaabkiisa ay ku qornayd tirada 322. qolka markii aan galay ayaan sariirta ku dul arkay suur madow, shaar madow iyo kabo madow. waan maydhay sidii la ii tilmaamay ayaan dharkii madmadooba ku labistay. cabaar ayaan daawaday London Eye oo toos ugu beegan daaqada qolka aan ku jiro. waa meel ka mid ah meelaha ugu bilicsan magaalada London. dalxiisayaal badanna way joogeen. gobolku wuu sii dhacayaa, anna weli waxaan taaganahay daaqada. garaac xoogan ayaa albaabka la iigu soo tumay, haddana waa la iska furay. anoo yaaban ayuu igu yidhi, mudane, waxaa bilaabanaysa soo dhaweyntaadii. waan soo raacay, wuxuuna ii fadhiisiyey miis maro madow lagu sharaxay. shaqaalaha dhammaan dhar madow ayay ku labisnaayeen. miiska waxaa saarnaa qamri cas, waraaq sida saddexagalka u taal oo ay ku qornayd Welcome to the Brotherhood, kusoo dhawow walaaltinimada. iyo sidoo kale waxaa taalla hees magaceedu yahay Welcome Home, kusoo dhawow guriga. markiiba gabadh dhar madow xidhan ayaa masraxa soo fuushay, waxayna qaadaysaa heesta midhaheeda miiska saaran yihiin. waxaana ka mid ahaa eryadeeda Welcome to the world, kusoo dhawow meel, ilaa ay ka gaadhay Just leave me alone, kaliya iga tag. heeskaas oo ilaab qaaday misana cabsi igu abuuray ayuu mid madow ii yimid. isagoo madaxa hoos u foorinaya ayuu igu yidhi, mudane, waa kuu diyaar gaarigii ku qaadi lahaa. dabaqa hoose ee hodheelka ayaa la geeyey, waxaana igu sugayay gaari kala jeedan. markaan gaarigii gudaha u galay waxaan ku arkay saaxiibkay. waan ku naxay oo waxaan ku yidhi, war maxay sidani tahay? isna wuxuu igu halceliyey, waa adigii muddo daba socday inaad nagu soo biirto ee ay codsigaaga 2 jeerba diideen Club of Roma iyo Scottish Temple. hadda waxaa timi fursad aad isku muujin karto. haddii aad daacad ka noqoto howlaha lagu igmanayo, waxaad heli xubinimo buuxda. magaalada waan ka sii baxaynaa. waxaan gaadhnay dhismo dhulka hoostiisa ka dhisan oo aad yaabayso qaabka loo dhisay. saaxiibkay gaarigii ayuu ku hadhay, anna 2 nin oo xidhan dhar madow oo ay qoortooda suran tahay 3 gees cas ayaa intay garbaha i qabteen ayay ii kaxeeyeen qol madow oo iftiinka qura ee ka baxaya yahay shamac. waxaa goob madow soo fadhiyey nin darajadiisu tahay 33 oo magaciisa la igu sheegay Paul Macmillan. wuxuu weydiiyey inaan ku qanacsanahay inaan kusoo biiro ururkooda Dark Marrow. anna hore ayaan ka aqbalay. habeenkii halkaas ayaa xaflad weyn la igu sameeyey. 3 habeen kadib, aniga oo sidii meeshii ugu jira ayaa Paul ii kaxeeyey qol madow. deeto ilays ayaa lagu qabtay gidaarka, waxaana la tusay khariirad madow oo ay cad yihiin 2 meelood. wuxuu weydiiyey Paul, 2 meelood ee cadcad miyaad garanaysaa? waxaan ku yidhi, mid waa geeska Afrika, tan kalena waa bariga dhexe. Paul ayaa igu yidhi, waa dhulka Soomaalida, tan kalena waa Sham. wuxuu ii raaciyey in khariirada la sameeyey shirkii Berlin ka dhacay 1884. wuxuu kale uu ii sheegay arrin argagax igu noqday. Paul Macmillan wuxuu igu yidhi, shirkaas waxaa fadhiyey kii samada ka soo dhacay. markuu arkay in aanan fahmin ayuu igu macneeyey, idinku shaydaan ayaad u taqaan. wuxuu noo sheegay in dhulka Soomaalidu iyo Shaamba ay yihiin 2 nuur ee u baahan in lala dagaalamo si qorshaha iyagu u fulo. halkaa waxaan ku joojinaynaa qaybta koowaad. qaybta labaad insha Allah suga.